بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii sideedaad 2022 shir ka dhacay madaxtooyada dawladda Puntland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dawladda Puntland shirkaas oo ku saabsanaa manhajka dawladda Puntland ee dugsiyada sare waxa lagaga hadlay in qiimaha buugta manhajka dugsiyada sare oo laga soo saaray go'aamada tan qodobka koowaad in qiimihii ahaa $5 uu ahaa qiimo macquul ah markii la eegay kharashkii ku baxay qorista daabacaadda iyo ka shaqaynta manhajka oo shirkadda madbacadaha midoobay ee Puntland ay sameeyeen qiimahaasina uu ahaa mid macquul ah maadaama aanay dawladdu haysan cid ka caawisa shaqada iyada ah dawladdu waxay u xil saartay madbacadaha midoobay ee Puntland in ay buugaagtaas qorto qiimaha $5 hina wuxuu ahaa qiimo macquul ah qodobka labaad waxa la go'aamiyay iyada oo la eegayo duruufaha lagu jiro awgood in qiimaha buugta dugsiyada sare laga dhigo $3 qodobka saddexaad ee dawladda Puntland waxay qaaday inay bixiso $2 oo u dhiganta $1 milyan iyadoo waalidiinta Puntland laga dulqaadayo culayskii saarnaa ee ku aadanaa qiimaha buugaagta waxaan rabaa halkan inaan raaciyo waa markii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay yeelato manhaj qoran dugsiyada hoose dhexe iyo sare muddo 22 sanadood ah dawladda Saciid Cabdullaahi Deni uu hogaamiyo aniguna aan ahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxay hirgelisay iyada oo ka duulaysa yoolashii madaxweynuhu uu lahaa mid kamid ah inuu sidaa ku soo gabagaboobay sidaas darteedna manhajkii Puntland uu maanta diyaar u yahay u doona Soomaali Suudaneys Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaneys waa badqabka bulshadeena.